بسم الله الرحمن الرحيم ومركله iyo barnaamijkeeni taxanaha oo weekligaha aad ka daawan jirteen channelka indhaha shacabka ku soo dhawaada daawadayaal waxa dhinacayga fadhiya Bashir Ahmed sidoo kale Abdi Fattah iyo aniga barnaamijkeena labaad waxaan kaga hadlaynaa maamulkii Khaatumo ama SSC oo dibadda loo aasay isla bishan toddobaadkii soo dhaafay hadda maamulka SSC Khaatumo waxa uu soo maray heerar kala duwan oo aad u fara badan hala soo jalaafayo dhan walba siyaasi laga jalaafayo dhan ciidan laga jalaafayo dhinacyo badan laga jalaafayo maanta waxa uu marayaa meeshii ugu dambeysay oo waxa uu leeyahay hogaamiye iyo maamul jira oo kamid ah maamulada Soomaaliya horta marka hore shacabka reer Khaatumo iyo maamulkooda waxaan leenahay dhamaanteen hambalyo waa maamul ku soo biiray dalka Soomaaliya waa maamul wax qabad waa maamul historyga Soomaaliya laf dhabar u ah ama halbowlow ah ummadda Soomaaliyeed kuna yaala meel istiraatiiji waxaan ku bilaabayaa qodobkayga waxa maamul ahaan ugu dhow kan Somaliland ee la dagaalamaya maamul Khaatumo iyo Puntland horta Somaliland aqoonsi iska daaya xataa ixtiraaf inay iyada siiso Khaatumo laga sugmay laakiin maamulkii Puntland hiili how aha ama garab iyo gaashaan u aha maamulkan oo madaxweyne Deni ku dhawaaqay inuu garab istaagayo wax hadala wali kama ay soo bixin mana ka hadlin madaxweyne Deni maamulkan cusub mana u hambalyan mana aqoonsan dawladii dhexe ee ummadda Soomaaliyeed madaxda u hay'adana sidoo kale maamul goboleedyada kale iska badaayiga Jubbaland oo Koonfur Galbeed Galmudug South East wax ay ka hadleen male marka hore waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed maamulka Khaatumo in ashidniyada ku soo dhaweysaan dawladda loo sheego maamul goboleedyada loo sheego hadba maamul baa soo baxaya maamulkan waa maamul curdina waxaan leeyahay madaxweynaha iyo maamulkan mar labaad aanu afkay ku hadlaya hambalyo soo dhawaad Abdi Fattah عبد الناصر آد ياد باد إن روما حسنت هاي برنامج كان رنتي وبرنامج آد مهم وآه ديجان كان SSC Khaatumo دقيقين وميل بريدج وآه اسمه حركة سومالية نعم dadkana muddo badan ayay halgan u soo wadeen waxaana la oran karaa waa dadka kaliya ee u dhinta calanka Soomaaliya Soomaalida inta kale waxyaabo kale isku haystaa ama lagu diriraa laakiin reerkan waa reerka kaliya horena ugu soo dhintay haddana u dhimanaya u diyaarsanna inay u dhintaan marka sida aad sheegtay waxa ugu dhow hadda maamulada qoladan kale waaba dadka ay isayaan oo leh ha ka soo go'a Soomaaliya iyo aynu dawlad gooni ah aynu noqono ayagana ay diidan yihiin oo ay leeyihiin annaga Soomaaliya ka go'i mayno uma Soomaaliyeed baynu nahay shacab Soomaaliyeed baynu nahay maanta isaakadaas ugu dambeysay magaalada waxa la dhacay madaafiic baa la dhacay waxa la sheegay dhowr qof oo magaalada ka dukaamaysanayay in ay ku dhinteen waa nasiib darro in dawladda federaalkana runtii ay ku daawanayso oo ay hadal kaliya xataa ugu hiilan weyday inay dadka aqoonsato marka laakiin waxaan sugaynaa Soomaaliya maadaama ay tahay 4.5 bal dadka ay horta ay isku pointiga yihiin in ay xaggooda ka timaado aqoonsiga awalkii hore wuu jiray maaragtay qaybo ka mid ah inay isbarbar taageen sida Puntland oo ay dhiig iyo dhalasho wadaag yihiin iyagana in haddana aan ka sugayno inay bilaabaan aqoonsigoodii kadibna ay u gudubto maamulada kale ee Soomaaliyeed aan rajaynayo dawladda federaalka laftirkeeda inay isdaba qaban doonto waxa la yiraahdaa caano daatay dabadood la qabay marka anigu intaasaan ku soo ururinaya warkayga Axmed Haye bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsantihiin dhinaca kale haddaan ka fiirino Jubbaland iyo Puntland iyo Khaatumaland markay wax noqdaan waxaa meesha ka soo baxayo saddex dowlad goboleed oo siman oo tartan haddii uu dhaco xataa waxooda dhacsan karo Axmed Madoobe saan ognahayba kama hadal ilaa iyo haddeer Khaatumo totally intuu meel soo istaagay weli ma aragteen isagoo hadlay ma dhicin marka Khaatumo aad baan ugu mahad celinaynaa Puntlandna waxaan leenahay walaalihiin saa u garab istaagteen u garab taagnaada ilaahayna waxaan u baryaynaa in kuwii guulaysta alla ka dhigo
cadowgoodana cagta hoosteeda allaha geliyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan hal ku darsado khaatumo state of Soomaaliya run ahaantii qofka bini aadanka ah kor waayay loo wada indho Puntland deegaan ahaan iyo dad ahaan iyo shacab ahaanba iyo maamul ahaanba waxa u habboon inay ku dhiirato inay khaatumo aqoonsato dantuna ugu jirtaa shacabka reer Puntland iyo maamulkooda waxyaalaha ay danta ugu jirta haddaan ka soo qaado bridge-ka maanta ka yimaada Soomaaliya ee waqooyi u gudbaya waa SSC Khaatumo kan waqooyi ka yimaada u gudbaya koonfurna waa SSC Khaatumo marka halkaa waxa ka soo bixi karta horumar aad u weyn u baaxad weyn sidoo kale deegaanka ugu shidaalka badan Soomaali ay degto waa SSC Khaatumo oo hol baa la dhahaa ninkii yaqaan baa yaqaan waxyaalo badan ayay ku duugan maamulka Khaatumo waxyaalaha colaadan marka madaxweyne sababayba waxa weeye halkan fariin uga diraya madaxweyne waqti yar baa ku haray maamulkii aad 5 sano soo hogaaminayso waqti yar baa ka haray waad aragtaa waxa ka socda Somaliland iyo kursi jacaylka iyo halka uu Muuse marinayo maanta waxa kula gudboon inaad maamulka Khaatumo aqoonsato hadda kursiga Puntland raja ka qabto waxay kaaga xiran tahay in aad SSC afkaaga uga dhawaaqdo maanta maamulka Tunwins koonfurta Soomaaliya kama jiro marka runta ku sheego afkaaga daniyo ka qir SSC Khaatumo maamul gooniya waxa kale waxaan aaminsanahay inay sanduuq ku soo raacayaan hadalkaaga koonfur galbeed ba ku dhawaaqi doonto Jubbaland ba ku dhawaaqi doonto galmudug ba ku dhawaaqi doonto marka waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa madaxweyne Sheekh Cabdullaahi Daniyow cimri taga ceeb laguma sagootiye nimanka reer Khaatumo xaqooda afkaaga ka sii daa afkaaga marka ka sii deysid si walba aad ugu heelisay waxa ka muhiimsan ama ka mug weyn inaad tiraahdo maamulka Khaatumo waa maamul jiro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.